halkani waa radio Karaamada idaacadaha iyo lambadeyaasha iyo qasaasadeyaasha la gubtay dhageystayaasha dhawaad duuban oo kusoo dhawaada warka gafuurkiisii warkii oo saddexdeen qatana waxa idin haya wariyihiisii shaa oo hadda shaaca idin ka qaadi doona dhageystayaal kusoo dhawaada warka madaxdiisii wararka aan caawin ku haynana waxa kamid ah dagaal baan dhaxsada ciidamada Suudiya kuwa qubanta iyo khasaaraha la xagta la iskaasiyay jiirka ganacsatada jaadka ka baxa magaalada Jiracsani oo weyn oo 70 jir oo isaguna ku goolay suuqa xoolaha silada jigjiga jiir Amerikaana oo dalxiis oo ku goolay dalka Djibouti laba diyaaradood oo qaada xalaalin xafaariin iyo xogsato kale booyada ka muujiyay mudaharaad dawladda soo fiida iyo warar kale oo caalami ah oo aan halkan idin ku hayno dhageystayaal kaasi wuxuu ahaa warka madaxdiisii kuna soo dhawaada haasan isagoo fitan waxa idin haya wariyan laaninu dagaal baan ayaa dhaxsada ciidamada Suudiya kuwa qubanta waxa la isku adeegsaday hubka sida darandooriga u dhaca sida darbaaxada nooca indhaha jirta sabaxada nooca shafka xoorisa dameerada nooca raaranada ka dhunta tamuujada qanjiirada wajaasta iyo weliba afsaarka nooca ilkaha daadiya keesada marka sanka lagu dhufto dadka kororka ka keenta iyo weliba qalab kale oo caalami ah dagaalkan waxa uu ka dhacay khayraadka ciinkeetinka ayaa la isku hayaa waxa ku barakacay cayayaan aad u tiro badan sida tiraqaaga kabarjaanka iyo cayayaan kale oo tiro badan waxay u baahan yihiin in la soo gaaro kaalmo xawayaan bini'aadamnimo haddaba dagaaladan oo iyagu socdeen maalmaha ugu dambeeyay ayaa waxaa la sheegayaa in la soo riixay lana soo wajaafay dhinaca iyo ciidamada Suudi iyada oo hadda ka hor uu isticmaalay gudoomiyaha Suudi hogaaminaya dagaalna sabaxada nooca shirka xorta iyada laga mamnuucay dagaalada sokeeyay hadda ka hor dagaalkan ayaa waxa uu socday muddo tan ilaa 7 ah waxa la sheegayaa in hadda ay ku casarayaan ciidamada qubantu dadka kale isla saacada gudahood oo wariyaha iyaga loo yaqaano nyaanu ayuu khadka ku jira ayaa hadda wuxuu taxtaagan yahay saylada suuqa xoolaha jigjiga waxa uu soo sheegay in orgi weyn oo 70 jir inuu hadadan garooday lama sheegin sababta keentay garoodkan balse khasaare xaallo aad u ballaaran ayaa waxa ay u geystay garoodka orgigani afyaan oo orgigan ayaa wuxuu sheegay in laga keenay meeshii la yiraahdo Saynacad iyadoo biyihii baa soo nabadgelin hadda waa dameerada nooca u soo baran rashada ka dhacay suuqa xoolaha silada jidka marka loo yaqaano Duusweyne ayaa raasi wanaagsan orgigii kadib orgigii waxa loo qaaday dhinaca isbitaalka Karaamada iyadoo dad badan oo aad u careysan ay go'aan ku gaareen inay maraqiisa iyo hilibkiisa ay cuni doonaan orgigaasi orgigan oo galabtay 4 dilaalasa iyo 4 weyn oo ka ganacsada hilibka ayaa waxa la sheegay in uu dameerkaasi uu kadib wadnaha istaasiyay jiirka ganacsada jaadka ka baxa magaalada Jiracsani sida Jantaar gaanta ayaa jaadka soo raray jiirkii iyo jaadkiiba waxa loo leexiyay dhinaca iyo magaalada Jigjiga jiirkan oo jaadka ku soo galin jiray hadda ka hor LC ayaa waxay finaad ku eedeeyeen inuu hadda ka hor bilaabay jaadkan loo yaqaan taajarada inuu ku soo galiyo kontraband jiirkii iyo jaadkiiba waxa loo leexiyay dhinaca iyo jibriga finaadka magaalada Jigjiga ay u leexiyeen iyadoo lagu dhintay cashuur aad u kulul jiirkan oo keeni jiray jaadka nooca loo yaqaan dhaadheerka gaagaabka ortada iyo raaciska kan kale isaga loo yaqaan mustarka dhaadheerka nooca la baraarida isagoo jaad kala duwan soo galnay afyeenada la dadka tayilo oo indhuhu aad u casihiin amaansina ilaa iyo suuqa maanta dhan amsanayay xaaladiisuna ayna caadi ahayn indhuhuna ay casiin ayaa shaaca ka qaaday oo afku shuushalay haddii jiirkii iyo jaadkii wala soo deyn waayo in uu taqsiintiisa ay raggaasi taqsiintooda ay rag badan ku taqi doonaan dhegeystayaasheeda dhigaha duuduubano jiir Amerikaan ayaa ku geeriyooday dalka Djibouti lama sheegin sababta keentay dilitaanka jiirkan balse afyeen oo hadlay jiirkaasi waxa sheegay inay ka dambeeyeen jiirada argagixisayaal oo ku nool dalka Djibouti lana keeni doono sharciga maxkamadda caalamiga ee Hague jiirarkaasi Djibouti hadday soo dhaweydana jiirarka Mareykanku ay ku qaadi doonaan jiirarka ku nool dalka Djibouti dagaal ka dhana oo loo adeegsan doono B52 jiirarka noocan ay xagga dambe ka ridaan laba diyaaradood oo qaada xalaalin xafaariin xoog iyo xoogsato kale ayaa rakaabkooda u bedelay dhinac kale safarka diyaaradahan waxay qaadatay 70 milyan oo saacad inay hawada ku sii jiraan haddaba waxay ku burbureen samada cirka loo yaqaano wuxuu sheegay wariye u hadlay samada wuxuu sheegay in ayna cidna joogi karin cidii haysata Sky Passport nooca loo yaqaano passport cirka oo kaliya inuu ku noolaan doono goobtaasi dadka kalena la soo daadajin doono dhegeystayaal wariyihiisa shaa wuxuu idin leeyahay warka oo aan laga soo xiriiri doontaan www.cintin.com dhegeystayaal idaacadan oo radio Karaamada la yiraahdo isku fankaraysa oo hadda ka horna wariyaal badan shaqada laga eriyay halka kala soo xiriira shaqooyin badan ayaan idin haynaa aad iyo aad ayaan maasantii warka halka inoo shaqaalaado tan iyo mar dambe intaan hawada ku kulmi doono ayaan idin leeyahay sidaas